السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمان أصحابتي aad ku qiimo badan baan salaamaya insha Allah. Waxaan insha Allah videogan aan isla wadaagi doono xikmad aad u qiimo badan. Xikmadaasi waxay sheegaysaa ama waxay odhanaysaa almuxsinu muxsinun wa in nuqila ila manazil alamwaat. Qofka samafalaha waa samafale, weligii samafale ayuu ahaan doonaa, haba dhintee, haba loo gudbiye daarta dadka dhintay ee xabaasha. oo waxay tilmaamaysaa qofku hadduu intuu nool yahay samafalka u badiyo, dadka uu u samafalo wanaag uu u gudbiyo, oo had iyo jeeralaba ku dadaalo wixii dadka anfac u ah, ilaa xataa markuu dhinto dadka way u duceynaya, way soo xasuusnaanayaan, wax wanaagsan baa lagu soo xasuusnaanaya. oo sidoo ogsoon tihiin nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam khayru nnaasi anfacahum linnaas. dadka waxaa ugu khayrka badan dadka ummadooda ama dadkooda kale dadka anfaca, waa dadka ku dadaala markasta in dad kale anfacaan. mar walba waxaad ahaataa qof dadkiisa u roon. af iyo adinba waa inaad afkaaga waa inaad u samafashaa, wax wanaagsan aad ku tiraahdaa. haddii jeebadaada ay fiican tahay ama xaaladaada ay wanaagsan tahay, aad ku samafashaa lacagtaada, aad u sadaqaysataa. haddii kaalmo ama magartay caawimad ay kaaga baahdo waa inaad caawisaa. rasuulku wuxuu alayhi salaatu wasalaam man faraja can muslimin kurbata min kurabi dunya faraja allahu canhu kurbata min kurabi alqiyaama. qofka qof muslima ka furdaamiyo dhib ka mida dhibabka adduunyada ama dhibta adduunyada qofka ka furdaamiya, ilaahay wuxuu ka furdaaminayaa dhibta maalinka qiyaamaha. ilaah kuwa naga dhigo. waxaan insha Allah taala rajeynayaa inaad ka faa'iideen videogan oo aad go'aansataan maanta laga bilaabo ixsaanka ama samafalka inaad ku dheeraysaan. wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.